wuxuu noqday agoon isagoo 5 jir ah waxa uu ku dadaalay xifdiga qur'aanka kariimka ah iyo culuumta shariicada waxa uu noqday imaam kamid ah imaamiyada baytullaahi alxaraam waxa uu ka cudur daartay oo uu diiday inuu noqdo qaadi ama garsoore sanad dhamaystiranna waxa uu ahaa bila camal waxa uu ilaahay siiyey cod aad u macaan codkiisana waxa isu ekaysiiyaa culimo iyo arday aad u fara badan sheekh علي عبد الله جابر رحمة الله عليه وشيخ أين مانت تاريخ دي سسوق هذا دونه الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين intayna nugalin taariikhda sheekh rahmatullahi alayhi bal aynu wada dhageysano codkiisii macaana la khayra fi kathirin min najwaahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما شيخ علي عبد الله جابر إلهي وحوسي عد آدو معان وقفك دقيسته وقلبي سوقلقليه جعيل أيددك جعليهين أيا علماء فربضان يا أردي آدو فربضان أيا وحي اسكو كيسيان وأي قرآن كريم كاكو أخريان عد كيسو أوكاله iyagoo sida uu akhrinayo oo kale u akhrinaya bal haddaba aynu wada daawano culimo waaweyn iyo waliba arday fara badan oo isku ekaysiinaya codka sheekha rahmatullahi alayhi النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. sheekh cali cabdullaahi jaabir waxa uu dhashay sannadii 1337 isaga iyo mataankiisa oo la yidhaahdo saalim waxa uu ku dhashay magaalada Jidda. sheekhu waxa uu ka soo jeedaa qoys saalix ah oo ahlu cibaado ah oo ahlu khayr ah. ayeydii maray xajaysay xajkeedii u dambeysay oo ay sii macasalaamaynaysay ehelkeeda ayaa waxay ilaahay ka bariday inuu ilaahay ku oofsado iyadoo ku sugan Mina oo gudanaysa waajibaadka xajka. ilaahayna ducadii waa uu ka aqbalay waxaanay geeriyootay iyadoo ku sugan Mina. sheekha aabihii raxmatullaahi calayhi waxa uu ahaa mid khayrka jecel, waxa uu weynayn jiray ahlu cilmiga, waxaanu tamanin jiray oo uu jeclaan jiray in uu ku noolaado magaaladii rasuulka sallallahu calayhi wasallam magaalada Madiina. waxaanu jeclaa ubadkiisa qaar ka mid ah inay noqdaan culimo bartaa diinta shareecada. sheekh cali jaabir markay da'diisu ahayd 5 sano ayaa aabihii wuxuu go'aansaday inuu u guuro magaalada Madiina si uu ugu dhowaado ahlu cilmiga barakadeedana u helo. waxaaba laga yaabaa in ilaahay u rumeeyo riyooyinkiisa qaar ka mid ah oo ahaa in ay culimo noqdaan carruurtiisu. waxa uu ku tarbiyadayn jiray tarbiyadda wanaagsan, waxaana uu u kaxayn jiray masaajidka, umanu oggolayn in ay bannaanka u baxaan oo ay dibadda ku ciyaaraan oo ay ciyaalka ay isku da'da yihiin isqabqabsadaan oo ay la ciyaaraan. sheekh cali jaabir mar uu ka warramayey aabihii ayaa wuxuu yidhi, aabbahay raxmatullaahi calayhi waxa uu door weyn ka qaatay tarbiyadayda, noomanu oggolaan jirin inaannu bannaanka u baxno oo aannu ciyaalka la soo ciyaarno oo aannu isqabqabsanno. manaan aqoonin jidka masaajidka, madarisadda iyo guriga mooyaane jid kale. waxaanu ilaahay oofsaday oo aabbahay uu geeriyooday anigoo ay da'daydu tahay 11 sanno 1384 waxaana tarbiyadayda la wareegay abtigay iyo hooyaday. sheekh cali jaabir iyo mataankiisa saalim waxaa soo kaxeeyey abtigii, waxaanu keenay masjid jaar la ahaa oo la odhan jiray amiira muniira bintu cabdiraxmaan. masaajidkaasi waxaa macallim ka ahaa sheekh la odhan jiray raxmatullaahi qaari. abtigii wuxuu ku yidhi, labadan yaryari waa agoon, waxaan doonayaa inaad ku darto xalaqaadka xifdiga qur'aanka kariimka ah. sheekhuna waa uu ka aqbalay oo wuu ku dadaalay. sheekh cali jaabirna waxa uu ka arkay fahankiisa iyo xifdigiisa iyo akhlaaqdiisa oo aad u wanaagsan. sheekh raxmatullaahi alqaari waxa uu ahaa sheekh cajiib ah oo soo saaray culimo badan. waxa uu ahaa sheekh ardayda qur'aanka xifdisiiya, sidoo kale ku dadaala tarbiyadooda. waxaanu u isticmaali jiray marmarka qaar usha ayuu isticmaali jiray, ardayduna aad ayay uga haybaysan jireen. waxa uu ardayda bari jiray weysada saxda ah, waa uu kaxayn jiray, waxa aanu tusi jiray sida loo weysaysto. sidoo kale waxa uu bari jiray imaamnimada oo masaajidku marka uu jamcu ku yar yahay ayaa uu u dhiibi jiray mid iyaga ka mid ah, kadibna waa uu ka sixi jiray waxyaabaha ka qaldama. sidoo kale waxa uu u soo xidhi jiray albaabada masaajidka,
waxaanu u daari jiray sameecadaha gudaha, sameecadaha dibadda u baxayana waa uu ka bakhtiin jiray, waxaanu ku toobabari jiray in ay khudbadda akhriyaan oo ay wacdi akhriyaan ayuu ku toobabari jiray. waxaanu aad ugu dadaali jiray inay noqdaan dad ducaad ah oo dadka xagga ilaahay ugu yeedha. sheekh cali jaabir waxa uu ka dhigtay oo uu ka xifdiyey sheekh raxmatullaahi alqaari 11 juz. tartanka 10 juzna waxa uu u galay kaalinta koobaad. jamaaco khayriyah ayaa waxa ay fureen maxad u gaar ah xifdiga qur'aanka kariimka ah. waxa aanay ka dalbadeen xalaqaadkii masaajidada magaalada madiina in ay soo saaraan ardaydooda ugu wanaagsan oo ay ku soo daraan maxadkana waxa ay maamulo uga dhigeen sheekh la yidhaahdo khaliil ibnu cabdiraxmaan alqaari. markaa sheekh cali jaabir waxa uu ka mid ahaa ardaydii uu macallinkiisii raxmatullaahi alqaari u soo saaray in maxadkaasi uu galo oo qur'aanka inta uga dhiman uu ka xifdiyo. waxaana uu yidhi sheekh cali jaabir isagoo arrinkaasi ka warramaya, waxaan ka mid ahaa ardaydii loo soo saaray maxadka ay furtay jameeco khayriya ee xifdiga qur'aanka kariimka loo khaas yeelay. waxaana maamulo ka ahaa sheekh khaliil ibnu cabdiraxmaan. waxaana ka xifdiyey qur'aanka intii ii dhinnayd ayaan ka dhammaystiray. waxaanu dowr weyn ku lahaa sugitaanka xifdiga qur'aanka aan sugay iyo tajwiidka. haddaba intaynaan gudagelin qisadiisa uu sheekhu ku noqday imaamka masjidka barakaysan ee masjidulxaraam isagoo da'diisu ay aad u yar tahay, bal waxaynu ka warrami doonaa ku dadaalistiisa cilmiga shareecada. sheekhu raxmatullaahi calayhi dugsigiisii hoose iyo kii dhexe waxa uu ka baxay maxadka daarulxadiis ee u gaar ah culuumta shareecada. sidoo kale waxa uu dugsigiisii sare ka baxay maxad hoostaga jaamacatul islaamiya ee magaalada madiina ku yaala. sheekhu waxa uu ku dadaalay culuumta, waxaanu hoos fadhiistay culimo fara badan oo uu ka qaatay cilmiga. waxa uu dhammeeyey heer jaamacadeed ilaa uu ka gaadhay heer digtoora. waxaa soo baxday musaabaqo ama tartan loo bixiyey musaabaqatul a'imma oo laga soo saarayo imaamye la rabo inay masaajidda tujiyaan. kadibna sheekh raxmatullaahi alqaari ayaa waxa uu ku qoray magaca sheekh cali jaabir ayuu ku qoray dalabkaasi, isagoo u arkayey markaasi in uu u qalmo imaamnimada. sidaasi ayaa uu sheekhu ku galay tartankii, waanu ku soo baxay. waxaanu imaam ka noqday masjidka la yidhaahdo masjidulqumaama ee ku yaala magaalada madiina 1394. intaa kadib sheekhu waxa uu iska sii watay waxbarashadiisa. bal haddaba waxaynu soo qaadan doonaa qisadiisii sheekhu uu ku noqday imaamka masjidka barakaysan ee masjidulxaraam. qisadiisa imaamka masjidulxaraamka intaynaan u gelin waxaynu ka warrami doonaa qaabkii ay isu barteen boqorkii wakhtigaasi sacuudiga haystay oo la odhan jiray khaalid ibnu cabdilcasiis. laba inan oo uu dhalay maxamed ibnu cabdilcasiis oo la kala odhan jiray sacad iyo sacuud ayaa waxaa xidhiidh wanaagsan la lahaayeen oo xidhiidh wanaagsani uu ka dhaxeeyey sheekha raxmatullaahi alqaari oo markaa ahaa sheekh cali jaabir macallinkiisii ahaa, oo markaa masaajidka haystay masjid la yidhaahdo amiira muniira bintu cabdiraxmaan. waxa uu booqan jiray munaasabaadka, waxaanu markaa soo kaxaysan jiray sheekh cali jaabir ayuu soo kaxaysan jiray. waxaanay ka dalban jireen markaa labada amiiri in uu qur'aanka ku akhriyo. mar ayay ka dalbadeen sheekh cali jaabir inuu qasriga uu ku tujiyo salaada, kadibna waa uu tujiyey. arrinkaasi waxaa aad u soo dhoweeyey boqorka khaalid ibnu cabdilcasiis, waxaanu ku qaabilay qasrigiisa, waanu karaameeyey oo waa uu soo dhoweeyey. 2 sanno kadib waxaa laga dalbaday diiwaanka boqortooyada iyadoo loo soo marayo amiir sacad binu moxamed bin cabdilcasiis in sheekh cali jaabir uu tujiyo boqor khaalid bin cabdilcasiis iyo wafuudda la socota uu tujiyo salaada jimcaha, khudbadda jimcahana uu akhriyo. sheekh cali jaabir waxa uu u yeedhay sheekhiisii raxmatullaahi alqaari, waana isi soo raaceen. sheekhu waxa uu akhriyey khudbad aad u xeel dheer, sidoo kale waxa uu tujiyey salaadii jumco ah. markii
salaadii la dhameeyey ayaa dadkii la fadhiyey boqor Khalid ibn Cabdilcasiis ayaa aad u ammaanay sheekha fasaaxadiisa, fiqigiisa iyo sawdkiisa oo aad u macaan ayaa ay ku ammaaneen, waxaanay ku yidhaahdeen waa midho ka mid ah midhihii ka soo baxay jaamacaadka Sacuudiga. intaa kadib waxaa loo magacaabay Sheekh Cali Jaabir raxmatullaahi calayhi imaamka khaaska ah ee boqor Khalid ibn Cabdilcasiis masaajidka qasrigiisa ku yaala uu ku tujiyo salaadaha. boqor Khalid ibn Cabdilcasiis aad ayuu u jeclaaday Sheekh Cali Jaabir, aad ayaanay isugu dhowaayeen oo waa uu la sheekaysan jiray, sidoo kale waxa uu la dhaqmi jiray sidii inan iyo aabihii oo kale ah. boqor Khalidna wuxuu ahaa mid khayrka jecel oo xaafidul qur'aan ah. waxaa soo gashay bishii barakaysnayd ee Ramadaan, waxa uu ku daba tukan jiray boqor Khalid ibn Cabdilcasiis Sheekh Cali Jaabir raxmatullaahi calayhi, waxaanu aad u jeclaa sawdkiisa oo aad u macaanaa. waxaa la gaadhay 10kii dambe ee Ramadaan, markaa boqor Khalid ibn Cabdilcasiis waxa uu caado u lahaa 10ka dambe inuu u guuro masjidka xaraamka oo halkaasi ku ictikaafo oo uu beydka Ilaahay ku dhowaado. waxaana uu degi jiray qasri uu ku lahaa Safa ayuu degi jiray. markii uu xaggaasi u guuray ee uu 2 habeen joogay, waxa uu u xiisay codkii imaamkiisii uu ku daba tukan jiray 5 salaadood. waxa uu boqorku si lama filaan ah oo kadisa u dalbaday salaada maqrib ka hor habeenkii 23aad in loo keeno oo loo yeedho si degdega loogu yeedho Sheekh Cali Cabdullaahi Jaabir raxmatullaahi calayh. sheekhii ayaa yimid, waxa uu soo gaadhay salaada maqrib ka hor, halkaasi ayaanu kula afuray. boqorka markaasi waxaa la joogay wufuud aad u fara badan. wufuuddaasi la joogtay waxaa ka mid ahaa madaxweynihii Bakistaan ee wakhtigaasi oo la odhan jiray Diyaa al-Xaq. kadib markii la afuray ee salaadii maqrib ay tukadeen ayaa waxa uu u sheegay boqorku Sheekh Cali Jaabir inuu isu diyaariyo inuu tujiyo salaada taraawiixda ee masjidullaahi al-xaraam. halkaasi waxaa ka dhacday arrin lama filaan ah oo sheekhu hore umuu sii ogeyn arrinkani. sidii ayaanay ku galeen. waxaa la galay salaadii cishaa'i, kadibna waa laga baxay. waxaa 10kii hore tujiyey Cali Xudayfi ayaa tujiyey, 13kii dambena waxaa tujiyey markaasi Sheekh Cali Jaabir raxmatullaahi calayh. dadku codkiisa hore umay maqal, manay arag, manay aqoonin. waa markii ugu horreysay ee uu imaam ka noqdo masjidka baytullaahi alxaraamka uu imaam ka noqdo. waxa uu ka qaaday aakhirka suuratu Saafaat, waxaanu ku joojiyey kala bartanka suuratu Zumar. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. dadkii ayaa codkiisa u khushuucay oo aad uga helay, waanay jeclaadeen. markii salaadii laga baxay ayaa dadkii wada istaageen iyagoo leh waa kuma sheekhan codka macaan ee codkiisa lagu raaxaysanayo. madaxa ayay kor wada taageen, qof walibana wuxuu rabay inuu arko sheekha. dadkii ku dhowaa waa ay kaceen, mid salaamah iyo mid ku dhega ayaa ay noqdeen. sheekh ayaa wuxuu yidhi kelmad cajiib ah: maa huwa ilaa aadamiyun mithlukum. war sheekha iska daaya, waa bani aadam idinkoo kala ahe, iska daaya. markaa sida ay ula tacajubeen ee ay dadku u daawanayeen ee ay u jeclaadeen ayay ku tusinaysaa. intaa kadib sheekhu waa uu sii waday oo ilaa 10kii dambe ee bisha Ramadaan ayuu tujiyey. dadkii ayaa aad u jeclaaday. waxa aanay ku ammaaneen boqorka doorashada uu u doortay inuu noqdo imaamka masjidka xaraamka ee tujinaya. waxa aanay sidoo kale ka dalbadeen inuu u daayo oo uu noqdo imaamka rasmiga ah. waxa uu qaatay naanaysta ah imaamul malik ama
imaamkii boqorka naanaystaasi ayuu qaatay. markii ay dadku ka dalbadeen sidaasi boqorka ayaa boqorku waxa uu u doortay inuu noqdo imaamka rasmiga ah ee masjidka xaraamka. guddidii maamulaysay salaadaha iyo imaamiyada ayaa waxa ay sheekha ku beegeen raxmatullaahi calayhi salaada casar ayay ku beegeen. salaada casarna waa salaad la siraysto oo codka hoos loo dhigo. dadkii ayaa aada uga xumaaday arrinkaasi, waxaanay dooneen in sheekha loo dhiibo salaadaha jahriga ah ee codka kor loo qaadayo si ay codkiisa macaan ay ugu daba tukadaan. boqorkii ayaa ay u sheegeen arrinkaasi oo ay ka dalbadeen in sheekha loo dhiibo salaadaha jahriga ah. qoladii guddida ayuu arrinkii faray, iyaguna waxay ku cilleeyeen oo ay kaga cudur daarteen in ay jirto a'immadii waaweynayd oo raatib ku ah oo markaasi muddo dheerna soo waday, adag tahayna oo ay culays keenayso in maaragtay la kala bedelo oo sheekha lasoo dhex geliyo. markaasi boqor khaalid waxa uu amar ku bixiyey in sheekha imaam laga dhigo salaada subax. sidaasi ayaanu sheekhu ku noqday imaamka raatibka ah ama imaamka rasmiga ah ee salaada subax masjidka xaraamka.